halkan oo ah iskooska Taleex ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa caawa isugu soo baxay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkii ugu farax badnaa kuwaas oo ka kala yimid 20 degmo ee gobolka Banaadir halkan waxa ka dhacay barnaamij weyn kaasi oo shacabkan iyo mas'uuliyiintan uga soo horjeedeen tilaabada ay dhawaan qaaday Israa'iil taasi oo ay dal madax bannaan ugu tilmaamtay Soomaaliland oo kamid ah maamul goboleedyada dalka ka jira mas'uuliyiinta iyo dadka shacabka ay halkan ka hadlay waxa ay tilmaameen in ay aad uga xun yihiin tilaabadii ay dhawaan qaaday Israa'iil iyagoo sheegay in falkaasi uu yahay fal fool xun isla markaana liddi ku ah midnimada iyo jiritaanka Soomaaliya waxa ay sheegeen shacabkan iyo mas'uuliyiintii halkan ka hadlay in ay markasta garab taagan yihiin dawladooda Soomaaliya waa kuwan qaarkood mas'uuliyiintii iyo shacabkii halkan ka hadlay oo si toos ah ula hadlay Universal arrinkan ay ku dhaqaaqeen Somaliland qolada la yiraahdo waa arrin aan anaga noo fiicneen ayagana u fiicneen waxaan leeyahay marka ummadda Soomaaliyeed inay midoobaan ay gacmaha isqabsadaan marka muxaafid iyo mucaarad waxaan leeyahay insha Allah taala qadiyadan waa qadiyadna mideen la hadweeye aan u midowno maxaa yeelay wadankan waxyaalo badan laga damacsan yahay hagardaamooyin badan ayaa jiraan oo cadaan iyo madow wadaba insha Allah taala aan ka hor tagno xashaq jiro joogan leeyahay ma doorto laba arrin bas markaa wadii marina insha Allah duleera dadka social media isticmaal عن سومالنا دي لواركو والله ماشي مرنا دول الله يديها والله بلا كدارنا والله سومالنا مولنا تحمر ما كنا شاي انت شرف كوا كنا عندي دلك سوماليا يا دولة سوماليا waxay leeyihiin dal diblomaasiyadda isku difaacaya oo awoodiisu ay adag tahay oo xiriir wanaagsan la leh adduunka dhammaan waaye marka dal lagu soo degdegi kara ma aha waxa ay Israa'iil sheegtana wax macno sameynaya ma aha waxay ku xadgudbeen oo weligoodna ay ku xadgudbi jireen ahdiga qaramada midoobay u yaala waxa dhan aad halka isugu imaanay waa tallaabada ay Israa'iil qaaday aan ka soo horjeednaa mana aqbalayno Israa'iilna kama aqbalayno qolo kalena kama aqbalayno wax allaala wixii ku saabsan madax banaanida Soomaaliya kama gargartamayno Soomaaliduna waxay caan ku tahay dad Soomaalinimada iyo markii dhexdooda isdagaalayaan waa gooni laakiin markii la yiraahdo midnimada iyo Soomaalinimada wax ka banaanka ah dad u midooba awood dheeriyaan yeelana markaas marka midnimada Soomaaliya kama kaftameen aan leenahay Israa'iil oo ah runtii maamul maxaa la yiraahdaa fashilmay oo dabadhi oo waxa ah maxaa la yiraahdaa maafiya ah oo dhibaato badan ku haaya maxaa la yiraahdaa yaani caalamul islaami ayaga inta ku gacan siisay inay mataqaanaa cambaarayaan ay u soo baxeen waxay u soo baxeen inay u taagan yihiin inay muujiyaan difaaca dalkooda iyo midnimada Soomaaliya waxay u soo baxeen inay dadka Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi ku dhaqan inay fariin u diraan waxay u soo baxeen inay maxaa la yiraahdaa cambaarayaan tallaabada uu ku dhaqaaqay horjoogaha maxaa la yiraahdaa gobolada waqooyi maamulka la magac baxay Somaliland ee Cabdiraxmaan Cirro farxad weyn bay tahay intaas oo dhalinyaro wacyi leh inay isugu soo baxaan oo dalkooda difaacanaya iyo gobonimadiisa dawladoodana garab taagan wacyi iyo baraarug inta leegna waxa way haysta sharaftiina diintiina dadnimadiina iyo dawladnimadiina iyo taariikhdiina iyo sooyaalkiina difaacda waan leeyahay dhalinyarada sharaf bay noo tahay inaad si nabad ku banaan baxeysaan magaalada iyo nabada soo dhawaada dhamaantiin way go'aankii maanta madaxweynuhu xildhibaanadu ma la qaateen waa la qaateen go'aan qaraar baa baarlamaanku soo saaray gobonimada lagu ilaalinayo midnimada lagu ilaalinayo waana dambi cid kasta oo midnimada meel uga dhacaysa Soomaaliland mawlana taxamar ma kuna shaay inta sharaf ku ah hadaan uu garg darootane intaana ku gardaroonayna على Soomaaliland waa iskii loobaysa ee tiimeen waa iskii loobaysa gadaal shacabka Soomaaliland hal qofood ma la waayo 34 sano waxa kuna hurday ku noolaayeen wax run isku sheegay mala qoomna oo bay ku nool waayo war inta noola Soomaaliland daba joogaani cadow le ka dhigaadi ilaahay oo fahmin saaxiibkooda walaalkooda oo fahmin ma karo abaalbo ilaahay ka raba abaal yuhuuda maanta wadanka lagu keenmiya Israa'iil talaabo ma qaadana dad lagu gooy rabtaa nin qaawana xoolaha dhara ku gilna dhan cusub ku gadaa sheekadaas ma soconayso sheeka beele waa beele walaalkiisa darbo ku dilaan la jiray Soomaaliland wala aqoonsan isku mid waa wax mislaamaan shacab Soomaaliland ayaga waxay leeyihiin Israa'iil walaaleen waa ka jecelnaayeen shacabka Soomaaliland hal qofood ma la waayo 34 sano waxa kuna hurday ku noolaayeen wax run isku sheegay mala qoomna oo bay ku nool waayo marka wixii ma soconayso aan kala wadno marka insha Allah duleeyra shalay orama ka dhig laftanaga ka dhig maanta yuhuuda ka dhigooya war inta noola Soomaaliland daba joogaani cadow le ka dhigaadi ilaahay oo fahmin saaxiibkooda walaalkooda oo fahmin ma karo abaalbo ilaahay ka raba abaal yuhuuda maanta wadanka lagu keenmiya ay ka waran caawa shacabka u fara badnaa Taleex soo baxay dareenkiina bal ka waran dawladdiina Soomaaliyeed go'aankeeda ma daba socotaan laba qodob xashaq jiro joogan leeyahay ma doorto laba arrin bas markaa wadii marina insha Allah duleera dadka social media isticmaal عن Soomaaliland dii lagu arko والله ماشي مرنا دول الله يديها والله بلا كدارنا والله Soomaaliland mawlana taxamar ma kuna shaay inta sharaf ku ah hadaan uu garg darootane intaana ku gardaroonayna على Soomaaliland waa iskii loobaysa ee tiimeen waa iskii loobaysa gadaalaas ka marnaysa
ma rabtaa somalilan aad banaanbaxan ujeedkiisu wuxuu yahay inaan ku muujino midnimada Soomaaliyeed cir iyo dhul inaan lagu xadgudbi karin dhulkeena dhalinyarada Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin inaanan maaragtay wax aysan dawladdeena Soomaaliyeed raali ka ahayn inaanan laga dhaqan gelin Soomaaliyeed waa gartay tilaabadu ay Israa'iil qaaday bal idinku sidee ii taabatay dhalinyaro ahaan waxa dhan aan halka isugu imaanay waa tilaabada ay Israa'iil qaaday aan ka soo horjeednaa mana aqbalayno Israa'iilna kama aqbalayno qolo kalena kama aqbalayno wax allaala wixii ku saabsan madax banaanida Soomaaliya kama gargartamayno Soomaaliduna waxay caan ku tahay dad Soomaalinimada iyo markii dhexdooda isdagaalayaan waa gooni laakiin markii la yiraahdo midnimada iyo Soomaalinimada wax ka banaanka ah dad u midooba awood dheeriyaan yeelanaa marka midnimada Soomaaliya kama kaftameena leeyahay way ay dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed oo aad u doodaysan ayaga dalka shay ka doorsanayo dabcan sida Soomaaliland hadda Israa'iil ay u aqoonsatay in ay tahay dawlad bal ayagu macnaha fikrad ahaan idin ma isticmaal hadalladii ma maqlaan Soomaalida way maqlaan mar labaad ugu celinayna walaalaha Soomaaliyeed waxaan leenahay wada hadal iyo nabad iyo maxaa la yiraahdaa wax ku helaysiin Soomaaliyeed magaca Soomaaliland waa dhulka Soomaaliyeed afka ay ku hadlaan waa af Soomaali maanta luqad kale ma samaysan karaan magac kale Soomaaliland aan ahayn ma samaysan karaan yaani hadday dhul ahaan Soomaali xitaa ka go'aan magaci Soomaali kama harin wali Soomaaliland oo dhulka Soomaaliyeed ah aad daba socoto marka waxaan leenahay wada hadal ku soo dhawaada dawladda Soomaaliya waxay idin ogashahay miiska wada hadalka annagoo shacabka ahna waa idin jecelnahay soo dhawaada walaaleenaatiin reer waqooyi waa joogaan Muqdisho joogaan dawladda dhinac ka yihiin maxaa la yiraahdaa xaqii oo siyaasadda waa haystaan wax allaala wixii ka maqan oo kale aad tabaysan dawladda Soomaaliya miis wada hadal la soo fadhiista anaga shacabka hadana marnaba waa idrabnaa idima diidanina lana bismillahir rahmaanir rahiim marka hore warbaahinta Universal iyo wariye Anas iyo Khalid labadiina waa imaad cilna caawa maxaa la yiraahdaa bulshada Soomaaliyeed ee caasimadda Soomaaliya ku dhaqan Muqdisho waxay isugu soo baxeen fagaaraha Taleex inay ka dhiidhiyaan xadgudubka iyo gardarrada ee ku kacday Israa'iil oo ah runtii maamul maxaa la yiraahdaa fashilmay oo dabadhi oo waxa maxaa la yiraahdaa maafiya ah oo dhibaato badan ku haaya maxaa la yiraahdaa yaani caalamul islaami ayaga inta ku gacan siisay inay mataqaanaa cambaarayaan ay u soo baxeen waxay u soo baxeen inay u taagan yihiin inay muujiyaan difaaca dalkooda iyo midnimada Soomaaliya waxay u soo baxeen inay dadka Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi ku dhaqan inay fariin u diraan waxay u soo baxeen inay maxaa la yiraahdaa cambaareeyaan talaabada uu ku dhaqaaqay horjoogaha maxaa la yiraahdaa gobolada waqooyi maamulka la magac baxay Soomaaliland ee Cabdiraxmaan Cirro iyo qaybaha ka tirsan maamulkiisa runtii maxaa la shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku dhaqan waxay muujiyeen shucuurtooda waxay u taagan yihiin inay maxaa la yiraahdaa mar kastaba reer Muqdisho waxay u taagnaayeen ilaalinta Soomaaliya difaaca dalka weligood Allahood ma noqonin gumaysi kalkaal maanta waxay u horseeday Cabdiraxmaan Cirro Soomaaliya geeyga Soomaaliya qayb kamid ah wuxuu horseeday in mataqaana gumaysi iyo dhibaato la geliyo laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta labada aqal khudbad taariikhi ka jeediyay wuxuu sheegay in Soomaaliya weligeedba ay isdifaaci jirtay isna difaaci doonto dadka Soomaaliyeedna waxay garab u yihiin dawladooda waxaan u mahad celinaynaa wadamada caalamka iyo ururada garab istaaga diblomaasiyadeed noo sameeyeen cambaareeyeen xadgudubka Israa'iil runtii Soomaaliland shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waxaan u diraynaa fariin ah u istaaga sidii aad mataqaanaa karaamadiina iyo sharaftiina ku muujin lahaydeen ha ka aqbalina Cabdiraxmaan Cirro wuxuu uu mataqaanaa sameeyey dalkiina waa Soomaaliya wax walba tabasho ah oo aad qabtiin waxay diyaar u tahay dawladda Soomaaliyeed inay idin kala hadasho shacabka Soomaaliyeedna garab idin ma necbana laakiin maamulkiina gacanta qabta dulmiga uu sameeyay gardaradana ka qabta Netanyahuna meel ugu soo wada jeesano Israa'iil aan dhahno ha dhacdo banaanbaxan ujeedkiisu wuxuu yahay inaan ku muujino midnimada Soomaaliyeed cir iyo dhul inaan lagu xadgudbi karin dhulkeena dhalinyarada Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin inaanan maaragtay wax aysan dawladdeena Soomaaliyeed raali ka ahayn inaanan laga dhaqan gelin Soomaaliyeed waa gartay tilaabadu ay Israa'iil qaaday bal idinku sidee ii taabatay dhalinyaro ahaan waxa dhan aan halka isugu imaanay waa tilaabada ay Israa'iil qaaday aan ka soo horjeednaa mana aqbalayno Israa'iilna kama aqbalayno qolo kalena kama aqbalayno wax allaala wixii ku saabsan madax banaanida Soomaaliya kama gargartamayno
soomaaliduna waxay caan ku tahay dad soomaalinimada iyo markii dhexdooda isdagaalayaan waa gooni laakiin markii la yiraahdo midnimada iyo soomaalinimada wax ka banaanka ah dad u midooba awood dheeriyaan yeelanaa markaas marka midnimada Soomaaliya kama kaftameenaan leenahay way ay dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed oo aad u doodaysan ayaga dalka shay ka doorsanayo dabcan sida Soomaaliland hadda Israa'iil ay u aqoonsatay in ay tahay dawlad bal ayagu macnaha fikrad ahaan idin ma isticmaalaa hadalladii ma maqlaan Soomaaliyeed way maqlaan mar labaad ugu celinayna walaalaha Soomaaliyeed waxaan leenahay wada hadal iyo nabad iyo maxaa la yiraahdaa wax ku helaysiin Soomaaliyatiin magaca Soomaaliland waa dhulka Soomaaliyeed afka ay ku hadlaan waa af Soomaali maanta luqad kale ma samaysan karaan magac kale Soomaaliland aan ahayn ma samaysan karaan yaani hadday dhul ahaan Soomaali xitaa ka go'aan magaci Soomaali kama harin wali Soomaaliland oo dhulka Soomaaliyeed ah aad daba socoto marka waxaan leenahay wada hadal ku soo dhawaada dawladda Soomaaliya waxay idin ogashahay miiska wada hadalka annagoo shacabka ahna waa idin jecelnahay soo dhawaada walaaleenaatiin reer waqooyi waa joogaan muqdisho joogaan dawladda dhinac ka yihiin maxaa la yiraahdaa xaqii oo siyaasadda waa haystaan wax alaala wixii ka maqan oo kale aad tabaysan dawladda Soomaaliya miis wada hadal la soo fadhiista anaga shacabka hadana marnaba waa idrabnaa idima diidinina lana bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore warbaahinta Universal iyo Wariye Anas iyo Khalid labadiina waa imaad cilna caawa maxaa la yiraahdaa bulshada Soomaaliyeed ee caasimadda Soomaaliya ku dhaqan Muqdisho waxay isugu soo baxeen fagaaraha Taleex inay ka dhiidhiyaan xadgudubka iyo gardarrada ee ku kacday Israa'iil oo ah runtii maamul maxaa la yiraahdaa fashilmay oo dabadhi oo waxa maxaa la yiraahdaa maafiya ah oo dhibaato badan ku haaya maxaa la yiraahdaa yaani caalamul islaami ayaga inta ku gacan siisay inay mataqaanaa cambaarayaan ay u soo baxeen waxay u soo baxeen inay u taagan yihiin inay muujiyaan difaaca dalkooda iyo midnimada Soomaaliya waxay u soo baxeen inay dadka Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi ku dhaqan inay fariin u diraan waxay u soo baxeen inay maxaa la yiraahdaa cambaareeyaan talaabada uu ku dhaqaaqay horjoogaha maxaa la yiraahdaa gobolada waqooyi maamulka la magac baxay Soomaaliland ee Cabdiraxmaan Cirro iyo qaybaha ka tirsan maamulkiisa runtii maxaa la shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku dhaqan waxay muujiyeen shucuurtooda waxay u taagan yihiin inay maxaa la yiraahdaa mar kastaba reer Muqdisho waxay u taagnaayeen ilaalinta Soomaaliya difaaca dalka weligood Allahood ma noqonin gumaysi kalkaal maanta waxay u horseeday Cabdiraxmaan Cirro Soomaaliya geeyga Soomaaliya qayb kamid ah wuxuu horseeday in mataqaana gumaysi iyo dhibaato la geliyo laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta labada aqal khudbad taariikhi ka jeediyay wuxuu sheegay in Soomaaliya weligeedba ay isdifaaci jirtay isna difaaci doonto dadka Soomaaliyeedna waxay garab u yihiin dawladooda waxaan u mahad celinaynaa wadamada caalamka iyo ururada garab istaaga diblomaasiyadeed noo sameeyeen cambaareeyeen xadgudubka Israa'iil runtii Soomaaliland shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waxaan u diraynaa fariin ah u istaaga sidii aad mataqaanaa karaamadiina iyo sharaftiina ku muujin lahaydeen ha ka aqbalina Cabdiraxmaan Cirro wuxuu uu mataqaanaa sameeyey dalkiina waa Soomaaliya wax walba tabasho ah oo aad qabtiin waxay diyaar u tahay dawladda Soomaaliyeed inay idin kala hadasho shacabka Soomaaliyeedna garab idin ma necbana laakiin maamulkiina gacanta qabta dulmiga uu sameeyay gardaradana ka qabta Netanyahuna meel ugu soo wada jeesano Israa'iil aan dhahno ha dhacdo Anas Maxamed Soomane Universal TV halka banaanbaxa uu ka dhacay isgoyska Taleex ee Muqdisho